guutada Badri 313 oo ka tirsan ciidamada gaarka ah ee Commandoska Taliban waxay hadalhayntoodu soo ifbaxday kadib markii ay si weyn uga soo dhex muuqdeen taliska Taliban maadaama ciidankani uu si gaar ah uga duwan yahay muuqaalka guud ee ciidanka xarakada Taliban ee inta badan ku labisan ciidamadaha iyo waliba dharka caadiga ah ee dhaqanka u ah reer Afghanistan. dhawaana sawiro ay Taliban ku baahisay shabakadaha caalamka waxay muujiyeen askar tayeysan oo si buuxda ugu qalabaysan noocyada kala gedisan ee agabka dagaalka ee ka mid yihiin koofiyadaha jaakadaha maaskaro boorsooyinka dhabarka ee militariga iyo qalabka aragga habeenkii waxayna muuqaalada ay baahisay ahaayeen guutada lagu magacaabo Badri 313 oo ah xubno ka tirsan qaybaha kala gedisan ee ciidamada gaarka ah ee taliska cusub iyadoo cutubkan loogu magac daray dagaalkii weynaa ee Badr ee muslimiinta ee 1400 oo sano ka hor ay ku jabiyeen gaalada. inkastoo xirfadaha iyo waliba tababarada ay heleen Commandoskan uusan la mid ahayn kuwa la siiyo ciidamada gaarka reer galbeedka ama Commandoska Mareykanka ama xitaa uusan gaarsiisnayn heerkii la filayay ee la midka ahaa kuwa dariska ah ee Hindiya ama Pakistan balse way ka waxtar badan yihiin marka loo eego ciidamada kale ee Taliban waana kuwa ka awood badan ciidankii hore ee qaranka Afghanistan ee burburay sida laga soo xigtay mid kamid ah khubarada dhinaca hubka. khabiirkan oo sidoo kale codsaday inaan magaciisa la sheegin ayaa tilmaamay in cutubkan loo adeegsaday dagaalkii ka dhanka ahaa Daesh intii u dhaxaysay sanadihii 2017 ilaa 2020 wuxuuna intaas ku daray taariikh ahaan marka la eego dhanka dagaalka waa kuwa inta badan guula soo hooyo sida laga soo xigtay wargeyska Chinese ee ka faalooda arrimaha militariga tirada guutadan waxaa lagu qiyaasaa 2,000 oo askari. Matt Heinemann oo ah madaxa wargeyska Chain ahna khabiir ka faalooda arrimaha la dagaalanka argagixisada iyo xaaladaha nabadgelyada ayaa sidoo kale sheegay in guutada Badri ay ku jiraan xubno si heer sare ah aqoontoodu u sareyso kuwaas oo kamid ah dagaalyahanada ugu fiican ee abid loo tababaray loona qalabeeyay Afghanistan. waxaana la filayaa sida ay sheegayaan ila wareedyo laga soo xigtay khabiirkan in ciidamadan ay tababar u fidisay dawladda Pakistan mana ahayn mid aad u fudud ama si sahlan ku yimid inay guutadan hadda dib u soo laabato kadib markii xarakada Taliban oo Mareykanku xukunka ka caydiyay 20 sano ka hor ay mar kale dalka dib u qabsadeen wuxuu ahaa dadaal iyo joogteyn soo socday muddo dheer oo ay xubnaha guutadan muujiyeen intii lagu jiray dagaaladii u dhaxeeyay Taliban iyo Mareykanka iyo xulufadiisa sida uu sheegay Bill Rocho tafatiraha guud ee wargeyska Long War oo u heelan dagaalka argagixisada. waxaa kaloo la xaqiijiyay in ciidamo ka tirsan guutada Badri 313 ee Commandoska Taliban ay gacan weyn ka geysteen la wareegida Afghanistan. waxay Taliban oo guul ka gaadhay dagaalka ay qabsatay hubkii ciidanka qaranka Afghanistan kaasoo ciidanka Mareykanku ku hubeeyay qalab militari oo horumarsan sidaas darteedna hubkii Mareykanku uu si dadban ugu wareegay gacanta Taliban. dhanka kalena maalmo ka hor guutadu waxay mas'uul ka ahayd sugidda amniga gegida diyaaradaha ee Kabul waxayna iyagoo kor u taagaya calanka cusub ee Taliban ay gacan u fidiyeen ciidamadii Mareykanka ee halkaasi ka baxayay muuqaaladaas oo la mid ahaa dibna u soo celiyay sawiradii iyo xasuusiyii hore ee askartii Mareykanka ee ku jiray dagaaladii Hiroshima ee Japan intii uu socday dagaalkii labaad ee adduunka. dhanka kalena marka laga yimaado awoodda iyo xirfadda sare ee Badri 313 u leedahay hawlgallada gudaha ayaa guutadani waxay kaloo si dhow ugu xidhan yihiin shabakada awoodda badan ee Haqqani ee magacooda loo nisbeeyo Jalaaluddin al-Haqqani oo ahaa asaasihii shabakadan oo kamid ah kuwa ugu awoodda badan ururka Taliban. waxayna laba kamid ah saraakiisha guutada Badri 313 ay qayb ka yihiin wadahadallada haatan socda ee ku saabsan dhismaha xukuumadda cusub ee dalka Afghanistan. waxayna xubnaha Badri 313 haystaan xirfado kala gedisan oo isugu jira tababaro militari oo sanado badan Taliban ay siisay kuwa kale oo shabakada al-Haqqani ee awood u siinaya inay xirfad u yeeshaan habka maamul ee militariga Afghanistan. sidaas darteedna waxay guutadani door weyn oo muhiim ah ka ciyaari kartaa taliska Taliban sida laga soo xigtay khabiirka dhinaca hubka ee barta Twitterka ku soo bandhiga magaca Kalibar Obscure warbixinadiisa haddii Taliban qaar kamid ah xubnahan ay geyso ama lagu amro inay hawlgalo ka fuliyaan waxay ka dhigan tahay in meeshaasi ay muhiim tahay. marka cutubka 313 wuxuu astaan iyo waliba lafdhabar maanta u yahay horumarada iyo waliba guulaha muuqda ee xarakada Taliban gaadhay iyo ujeedooyinka kale ee ka go'an inay mustaqbalka dhow gaadhaan. isku soo wada duuba guutadani waxay kaloo maanta ka turjumaysaa horumarka xarakada Taliban ee dhinaca militariga xilli uu wadanku ku soo jiray dagaal in ku dhow 40 sano waxayna wax badan ka barteen dagaaladaas oo soo bilowday tan iyo duulaankii Soofiyeedka ee 1979. dhankiisana Chill Drosser oo ah professorka cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda Paris wuxuu xaqiijinayaa
isagoo yiri waxaanu aragnay xirfado cajiib ah iyo horumaro la taaban karo oo ay Taliban ilaa iyo bartamihii 20-meeyadii ku hormarinaysay ciidankeeda. Wuxuu intaas ku daray dagaalka iyo hawlgallada ay hadda qaadayaan gabi ahaanba ma aha sida midkii hore ee ay kula diriri jireen gumaystihii Ruushka. Waxay intii u dhaxaysay muddadaasi ay heleen waayo aragnimo iyo weliba farsamo ahaan way ka awood sareeyaan sidii hore. Si kastaba ha noqotee doorka guutada Badri 313 ee Taliban ugu fadhido maaha oo kaliya mid si gaar ah uga faa'iideeya heerka militari oo qura, laakiin xitaa dhinacyada gorgortanka ayuu door cad ka qaatay iyadoo dagaaladii iyo hawlgalladii militari ee hubaysnaa ee ay kooxda Taliban wadeen oo ay barbar socdaan wadaxaajoodyadu uu markii dambe cadaadis ku saaray Mareykanka inuu iskaga huleelo Afghanistan, taasoo markii dambena dawladda Mareykanku ay garowsatay inay ciidamadeeda ka saarto kuna baxdo habka ugu macquulsan ee lagu yareyn karo khasaaraha kadib markii ay uga dhinteen dalkaasi in ka badan 2500 oo askari tan iyo bilowgii dagaalkii 2001 sidoo kalena ay uga baxday miisaaniyad kor u dhaafaysa in ka badan $1 trilyan Mareykanka ah. sidaas darteed wadaxaajoodkii Mareykanku kula jiray Taliban ma ahayn kuwa ka turjumayay isogol iyo waliba heshiis raali gelinayay labada dhinac laakiin waxay ku timid kadib markii ay ku guuldareysteen xeeladihii militari ee Mareykanku ka lahaa Afghanistan iyo sidii loo jabin lahaa Taliban laguna riixi lahaa inay aqbalaan heshiis iyo wadaxaajood hoose oo gumaysi ah si ciidamada Mareykanka iyo xulufadoodu dalka Afghanistan ugu sii nagaadaan. arrintan oo Taliban goor horeba diiday mowqif cadna iska taagtay ciidamadaas shisheeye waxayna guutada Badri 313 iyo qaybaha kale ee ciidanka Taliban ay caadeeyeen inay yihiin xoogga kaliya ee ka dagaalami kara awoodna u leh difaaca iyo sugidda amniga Afghanistan. sidaas awgeedna aan heshiis la gaari karin iyadoo laga xaajoon arrimaha jira, taasoo markii dambena wadamada waaweyn ee caalamku safaf dhaadheer iyo orod ugu jiraan sida ay u soo jeedan lahaayeen Taliban cilaaqaad diblomaasiya oo la yeelan lahaayeen. kadib 19 sano oo colaad iyo dagaalo ah Mareykanka iyo Taliban waxay heshiis nabadeed ku kala saxiixdeen dalka Qatar. heshiiskaas oo Mareykanku la heshiiyay in 14 bilood gudahood looga saaro ciidamada iyo kuwa kale ee xulufadiisa iyo in xabsiyada laga sii daayo siyaasiyiinta oo gaadhaya ilaa 5,000 oo maxbuus oo Taliban ah, taasoo ujeedaduna ahayd in la dhiso kalsoonida labada dhinac lana xoojiyo xiriirka dhexdooda ah oo haatan cusub. waxaana heshiiskan loo arkaa guul ay Taliban ka gaadhay Mareykanka iyadoo ay ugu wacan tahay guulaha guutada 313 ee Badri, shabakada Al-Haqani iyo qaybaha kale ee militariga oo dhamaantood ka qayb qaatay istiraatiijiyadaha gorgortanka ee ay adeegsadeen kuwaas oo sidii xadkihii isugu xidhnaa. taasina waxay dadejisay ka bixitaanka ciidamada Mareykanka. sidoo kale ku guuldareysiga hubka dhigista Taliban oo aan heshiiska lagu xusin waxay kor u qaadi doontaa awoodda iyo waliba gacan ku haynta ciidamadan qaybaha hadhay ee Afghanistan, taasoo gaarsiin doonta hamigeeda ama tiigsigeeda ah inay dhisto imaarad islaami ah oo adeegta xarakada iyo waliba guud ahaan shacabka reer Afghanistan. waa barnaamijkeena xulashada dunida oo aad kala socoteen Horfadhi Media.